laakiin haddii laygu qanciyo macallinka kenya kaa kuwaalati wacan wasiirkaygu ii sheego waxaan aaminayaa wasiirkaygana wasiirka waxbarashada inuu ka tayo waa yahay ee kenya okay way dhaliilaynu wada qabno weeye hay taasi taa weeyaan waxaan doonayaa wasiirka inaan su'aalo yaroo ku saabsan manhajka iyo imtixaankii way hay wasiir cabdullaahi waxaad imtixaanteen dad aydan idinku waxba soo barin badankood waxaad imtixaan ka qaadeen dad 75% idinku aydan waxba barin waqti iyo hantiina idinkaga lumin dadkii wax soo barayna wax talo aad kala wadaagteen aan jirin dadkii wax soo barayna wax talo aad kala wadaagteen aan jirin waxaad imtixaanka uga soo diyaarsan 4 book ilaa form 1 ilaa form 4 adiga oo ka xogla adiga wasiir Cabdullaahi ahaan iyadoo imtixaanka lagu soo dhijinayo wadanku macaamilu laha yaqaanay dugsi sare in la isku imtixaamo adiga aan xog helin wax lagu imtixaamaya inuu yahay 4 book ilaa form 1 adiga wasiir Cabdullaahi hadii imtixaanadii lagu dajiyo babaasi lahayd waa su'aasha koobaad su'aasha labaad ardayda gobolada ku galay imtixaanka waxaan ognahay inay ku galeen imtixaanka iskoolkii wax ku dhiganayeen waxaan ognahay kuwa ilaalinaya inay yihiin macallimiintii iyaga wax u dhigayay waxaan ognahay maamulkii iskooladaas inay saameyn ku lahaayeen waxaan ognahay sida macallinkaasi sheegay ardayga Muqdisho ku galay imtixaanka in si fiican oo sidii imtixaanka loo ilaalin jiray loo ilaaliyay waxaad nagu qancinaysaa labada arday inay fursad wada heleen oo fursad ahaan sinnaayeen fursad siman wada heleen way aad oo maasan su'aasha saddexaad su'aasha saddexaad manhajka sidii ognahay ilaa intan xornimada qaadanay waxaan dejinay manhaj kala dambaysa oo keenan hadeerta ugu dambeeyo mid walbana duruuf gaar ah iyo wax u baahan in la tixgeliyo ayaa ku xeernaa waana sababta inuu kaliifisa mar walba inuu manhaj cusub dejino guud ahaanna manhaj kastoo soo baxa meelo ku wacan yahayna waa jirtaa meelo ku liitaana waa jirtaa kana waa sidii oo kale meelo ku wacan yahayna way jirtaa meelo ku liitaana waa jirtaa way idinku ka wasaaradahan diyaar ma u tihiin hadeerto manhajkaas wixii uu ku liito in aad ka heshaan war celin way هذا ما waad saxdaan هذا ما صدق سؤال واكسي سؤال ugu dambeysay waxay noqonayaan inaan waqti weelin saaxiibada su'aasha ugu dambeysay ugu darban ka hadlaya wasiir anigu waxaan ahay macallin waalid ah 13 qof ayaa wax iga barta anoo macallina 13 qof wax iga barta 6 dugsiga sare iyo 7 dugsiga dhexe ba wax iga barta waxaan wax barayay dalka oo aan dawladda ka jirin dadkaas waxaan wax barayay iyadoo dawladda ka jirto waxaan awood u lahaa inaan mushaharkayga wax ku baro buugana suuqa uga soo gato wax ugu baranayo waxaan sugayay dawlad iga caawisa ala buug wuxuu igu kacay $40 ala ardayga buug kasta ala arday $40 bay igu kacay markaan isku dajiyay waxay noqotay $1,000 ku dhow sabab ma u noqon kartaan iyadoo aan arurteeda wax dawlad la'aan wax ku baranayay markaan dawlad iyo wasaaradda shaqaysa helay inay wax barashada ka haraan way meeshii ay ahayd inay halkii ay ahayd in dawladdu iga caawiso sabab ma u noqon kartaa ilmahaygu inuu wax barashada uga haraan manhajka aad keenteen dartiis aad oo maasan intaan qof kale u gudbin wasiirkan siiyo saddexdii su'aal aad u dhaadheera hay wasiirka ka jawaab manhajka aan ku hormaraya horta Cabdullaahi Jumcaale waa fiican yahay macallinka manhajka sidiisa saa ka warqabtid waa mashruuc aan dhamaad lahayn mar walba waxbaa ku soo baxo waxbaa laga hagaajinaya meel baa laga waxaynaya hadda manhajkan cusub oo hadda hirgalay durba waxaan ka shaqaynaynaa oo wasaaraddu ka shaqaynaysaa fasalka 5aad ilaa fasalka 8aad in lagu noqdo oo wixii ka soo yeeray oo mataqaanaa in la fiiriyo si marka labaad la daabacayo wixii ay uga dhex muuqdaan kuwa kalena waa daba socdaan marka jawaabdaadu oo toos u ahaa manhajkan mar walbaba shaqa ku socoto marka haddii wax wanaagsan ay soo zaa'idaan oo macallinkii ardaygii markay buuggii helaan wixii ka soo noqdo ka ku xigo ayaa lagu saxaya
annaga waa laga yaabaa inaad aaminsan tahay in ardayga aanan saameyn ku lahayn laakiin dowlad haddaysan jirin waxaa ogaataa ardaduna ma jireen laakiin waddankan dowlad lahayn jirin ardaydu taa sababteeda ma dhihi karo aniga detaydan rabaa inaan iraahdo fiiri xataa marka laakiin waa inaan kaa celinaa haddii sax ay maya marka xataa marka aad adigu aaminsan tahay inaan dowlad jirin waxa la hiigsanaya dowladnimada marka madaxa waxaa mar walba lagu haya oo la taminaya waxbarashadu waa jirtay in muxuu ahaa waxaan sii hayn hadda ka soo qabo 10 sano oo intii burburka jiray 10 ka mida oo dowladnimo xataa tii ku meel gaarka aysan jirin waxbarashadu way jirtay khayr allah siiyo dad Soomaaliyeed oo wanaagsan iska xil saareen oo iftiinkaas naga dumin laakiin markaas shaqada ay hayeen dowladda u haya iskooda iyo gurigooda iyo ilmahooda iyo qabiilkooda uma hayn meeshii dowladda ka maqnaatay ay dowladda ku matalaan marka dowlad mar walbaba waa muhiim marka taasan kale yahay arinta oo markii dowlad muxuu ah timid kharashkii inuu dhimin markaad leedahay wuu ku bataba sidoo sheegay oo ama kharashkii ku batay waa wax jiro laakiin dhinaca kale ka fiiri waxaa kaloo jiro dowladda canshuur ma qaado dowladda Soomaaliyeed oo aragtay ama maamul goboleed ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa dowlad dhexe furdadaas oo Soomaaliya oo dhan ay masruufanayso iyo airportkaas oo hadda waliba asigana soo yaraado jaadka kaliya ahaan jiray oo Soomaaliya oo dhan ku nooshahay oo wax walba Soomaali qabato lagu qabto ayaa horta dakhli ah waddankan ilaa uu ku soo noqdo sida adduunka oo kale oo canshuurta la bixiyo in service adigana heshid tayo leh oo qiimo leh way adkaanaysaa dowladdu cirka wax kama keento dowladda dadkay ka qaadaa dadkay u qaybisaa haddii marka dowladdiba aysan dakhli soo gelaynin oo wixii bay noqotay mataqaanaa furdadaas فيري مايا فيري نمبركاس حتى شيء صح معها بقولك كنتم وحكبرا بجت كان وحاكبو أدونك كسوهرو وفرضة يا إيربوركاس ودنك أنتي سكالوردن دخل مجرى حتى هدو جرو تقول دودي كرتين وواحد معنا الحين واي وحا أن وقول هاي وحوي in wadanku mar hadduu dudumay soo noqodkiisa oo muwaadinku inuu canshuur baxsho iri magaalada xamar waxaa la qiyaasaa 770,000 oo property ama deegaan inay leedahay min $1 haddii laga qaado waxay ku filan tahay in waxbarashada deegaanka oo dhan muxuu ahaa xamar oo gobolka banaadir oo dhan la waxay laakiin in $1 laga qaado waa in sharci ka soo baxaa waa in dad muxuu enforce gareey la helaa dadkuna waa inay markaan kuwa qabanaya ka nabad gashaa si ay u godladaan dadku intaas waa hawl sahlan oo sahal lagu qabanayo ma laakiin waa ku shaqeynaa dowladnimadu waa ku socotaa shalayba hadda intaan hadda aan ka hadlayna lama haynin birina kuwa ka fiican ay maana marka waxaad u qildayaysaa in wiilka iyo gabadha uu dhalay aabaha tabarta yar ee aan haysan qarash badan wax ku baro meeshii dowladnimada ay sugayeen inuu culayska waxbarashadii ay ka qaadato in iyadoo dib ku kordhisaad u qildaysaa dib ku kordhiso oo ay waxbarashadii ka tagaan dib ku kordhiso inaysan waxba u tarin waa war la dhageysan karo inay dib u kordhiso macna ma samaynayso inaysan wax dowladnimadaas la sheegay aysan wax u soo kordhin haddii dowladnimadiiba gacan Soomaalidu waxay tiraahdaa gacan waxay hayso waxaysan haynin waa ugeed haddaysan waxba sii karin ma la waalanayo soomaha booneen haddaysan ba wax ka nusqaamin karin culayska inaanay mid dhiba ku kordhin hadda dhibka la kordhiyay maxay tahay waa kana halkaan u fadhiyaa wuxuu leeyahay imtixaan been in loo sheego imtixaanka iska baabaasiyo wuxuu yiri $40 wiil kasta aan loo dir hay ha adigaana ogolaad inaad siiso shirkad private ah oo ay qiimaha ku kordhiso software baan ugu siisay way fiiri waxa weeye marka waxaad leeyahay ardayaan kordhinayna oo waxbarashada la'aanta yareena hadda waxbarasho la'aantii soo qayb ka noqon maysan ma qayb kama noqonayso fiiri waxa weeye masalooyin iska sahlanaa jiro oo mataqaanaa iska fiican in dadka
يعني lagu kiciyo wax la sheego marka ninkaas warkiisa waa kicina maahan waxaad leedahay wax sax oo aniga hadda mar raba inaan ninka saaxiibkay aan warkiisa naqdiyo fikirkiisu ka hadlay aan keegan ka maya xaalad dab oo kala hadla fikir ma waa wax aniga haysto ku yiri oo ah ilmahayga xaalad haysan waxa asiga haysto waxa asiga haysto hadda waa aragti wuxuu gurigiisu nooga waran laakiin inay sax tahay inay run tahay adigoo ma sheegi kartid ma beenaysan aniga ma beenayn karo waa asaan hor fadhiya anama rumayn karo inuu sax yahay run sheega feri maaha inaan ku kor buuqno ma moogtahay inaan kor rumayn karto warkiisa intaasan ka qaaday adiguna ma rumayn kartid anigu nin weyn oo qaangaar oo islaam halkaas fadhiya been waa ma dhigi karo warkiisa anigana waxaan rumayn karin 13 caruura oo wada iskool aado oo midkiiba 40 oo midkiiba 40 aan baxshaa warkaas xogo waxba kaaga jiro information ka hayno waa ka duwan